tababar muddo 3 cisho u socday shacabka ku nool magaalada Jowhar ee caasimadda Hirshabelle isla markaana ay u soo qaban qaabisay wasaaradda amniga ee dawlad goboleedka Hirshabelle ayaa maanta lagu soo gabagabeeyay magaalada Jowhar ee caasimadda Hirshabelle waxaana tababarkan looga hadlayay sidii shacabka ku nool gobolka Shabeellaha Dhexe ay u la shaqeyn lahaayeen booliska dawlad goboleedka Hirshabelle oo muddooyinka ay soo dhaafnay dardargelintiisu ay ka socotay gobolka Shabeellaha Dhexe waxaana tababar qaatayaasha la barayay sidii ay u la shaqeyn lahaayeen booliska dawlad goboleedka Hirshabelle waxaana kulanka tababarkan lagu soo xiriyay ka qayb galay mas'uuliyiinta maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe saraakiisha booliska gobolka iyo kan degmada Jowhar ugu horeen waxaa goobta ka hadlay gudoomiyaha maamulka degmada Jowhar Ismaan Maxamed Mukhtaar Baare amniga inaan magaciisa aan ka wada shaqeyno ama bulshada iyo booliska isku xirkooda marka la yiraahdo waxaan jeclaan lahaa in lagu daro bulshada iyo booliska iyo maamulka maamulka la'aantiisana ma shaqeyn karno bulshada la'aanteeda ma shaqeyn karno booliska la'aantiisana ma shaqeyn karno sidoo kale waxaa kulanka ka hadlay taliyaha qaybta booliska gobolka Shabeellaha Dhexe Aadan Yarow hadii wax ka sheegteen idinka dadweynaha naftiisa ma uunsana oo hadana u qaldanahay idinka waa toosin kartiin waxa dhigi kartiin waa qaldantiin laakiin qaladka hadaan lagu raacday idinka naftiina ma uusanidin waxaan leeyahay waxa laga bartay halkaan ee la isku xantay ee la isku sheegay waa in lagu shaqeeyaa bulshadan run isu sheegin wanaag dhali mayso bulshadan run isu sheegin wanaag dhali mayso booliska cilad waa sameyn karaa booliska cilad waa sameyn karaa malaa'ig ma aha laakiin maxaa la rabaa in la yiraahdo booliska nin hebel sidaas asaasni yeelay laakiin shibada ka tiraado dhar boolis oo xiriir aad tiraado shibka tiraado qaladka waxaad ka leedahay adiga oo aad qariso waxaan leenahay soo dhawaada wixii qalad oo leenahay waan qaadanaynaa wixii qalad oo leedihiina qaata gudoomiyaha maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe Axmed Meer Makraan ayaa soo xiray tababarka muddada 3 cisho u socday shacabka ku nool magaalada Jowhar waarna booliska iyo bulshada waa labada qunug oo wax ka toosaan oo hadii aad aragtiin ama dawlad ama maamul jiro oo ka tooso bulshada iyo booliska oo heesto waxaana anaga waxyeeno soo degimay qof kalena noo imaamay wax kale noo imaano toosiyay ma jiro dhaqaale qofku noo keenayso wax noogu qabayso oo aan kidib anaga ku raaxaysay oo ku socoysana ma jiro inaan anaga isku tashano anaga inaan waxayna quraxsano inaan anaga is hormarino anaga la ka rabo arinta amniga isku xiraashada bulshada iyo booliska waxaa jirta hadii aan dhaan anaga إلهي وبلاينا نيقبو إلهي وبلاينا نيقبو أنت لو نوجد إلهي من نيقبها يا رنت أسكو شاغن مكتب بين لا شاغن مرة حدام بين أسكو شاغن ولي جين هرمر قاري من هرنو صعمين وعقو جرا سرت وجي فاود عسوسا كي من دغاي كي ددك خريباي كي ددك دلمياي سرت وجي فا اما وا قبيا اما وا دشي اما وا كلا دشي سرت ودنا جيفا markaas aan calan ilaahu balaada naga celi ilaahu balaada naga celi ilaahay ma sareyna hada saanigiisu sireeyro isku daalay ilaahay ma hadan dhagrayna waxaan rabnaa sidaa qof naftiisa inta gabay naf kale inuu qaribu soo istaagay walaal ku maahay hadaa dhashay wiil ku maahay hadaa kula dhashay wuxuu ku yahay ma jirto hadaa ku qabana waa ka sii xun yahay balka waxa laga yaabaa waxa dhalaysiinaysa dad ku sii qaribaan عبد الرحمن حسين عمر ودني تي في كالسان مقالة الجوهر.